بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان ku baran doonaa break page kan aynu ku soo aragnay insertiga waa isku mid xabaalkan basharax ma baahnaa isaga waa halkan waxa ku jira warqadii oo la kala jibinayo column-ka wada warqadii iyo column-kii oo la kala jibinayo marka waxaan sameyn karnaa intan option bay ka kooban tahay iyadoo noocaas sameynayso fiirso warqadii marka waxa uu qaybsatay 3 page oo kala qaybiyay marka hadii aad san u kala dejisan waa isku mid hadaad columns-ka wala wuxuu next page marka intaas un baad ugu baahan section-ka page iyo next page if an odd note ku sameyn karaysa halka isku roga page waa 1 iyo waxa isku rogmaya 2 iyo 4 1 iyo 3 isku rogmaya odd and even baa odd and even marka wad fahanti halkan faa'iido badan baad ka hesho page-ka oo kala jabiso column-ka iyo next page labadana isku dhow laakiin labada ka faa'iido waa even page iyo odd page isku roga waraaqa marka 2 iyo 4 ba isku rogmaya 1 iyo 3 isku rogmaya okay waxaan ku xusin doonaa halkan watermark waad aragtay buugaagta halkan lagu hoos qortaa si aan loo koobiyeysan magaca cidii soo sameysay marka ugu horeysa halkan la tagaa markaas lagu qortaa saasoo kale warqadda ugu dhex qormaya markaas halkan tagaysaa custom watermark warqaddan yar ku soo bixi doonta warqadda yar inoo soo bixi doonta ayada waxaad keeni kartaa sawirna waad keeni kartaa qoraalna waad keeni kartaa qoraalka halkan aad text baad tagaysaa tigta halka text ku qorantay kan waa language text iyo font marka halkan aad tagaysaa textiga markaas aad qoraysaa Ahmed waxaad doontid aniga hadda magac ma qorayo tijaab oo ugu tusaya waa ka xidhmka hadda waa ka koosiya oo darkasa lama koobiyeysan karo warqad kasta gudaha hoos u ka yaala qoraalkan ku dul qormay oo darki doonta sano kale ku soo dhawo hello everyone baan isqorina hello everyone luqadda markaad programka joognaad aad u fahamto hello everyone taas ay qorayaan okay kan marka waa uu ku dul qormay oo darkasa أنه columns-ki wiga haystaan ka saarno one day okay waa ka wada arkaysaa marka waxaan sameyn karnaa si uu u fadhiisto laba column baynu ka dhigi karnaa markaas aynu sii wadayna sadarto ka ku dul qormaya markuu saa u dul qormo ayaa waxay faa'iido leedahay si aan lagaga koobiyeysan saxabka sawirka loo keeno halka qoraalku ma sawirkeena ku noqo watermark custom watermark warqadda halkii hor markii text baan siinay hatta midabka bedeli kartaa faa'iidaan ku soo halka midabka ay bedeli kartaa size-ka bedeli kartaa color-ka bedeli kartaa hadda color kan ka dhignaa midabka doonaan ka dhigi karnaa darkas ay hadda picture baan tagaynaa sawir baan keeninaa kana shaqeynaa picture goobta soo doonaysa select goobta canvas ka keensan sawir midun noo keen kanba ku tijaabi hadda sawirkaas si uu markaba aanu meesha u wada qabsan uu had liito u yeesho ka saartagta okay si marka waa ka wada arkaysaa laakiin haddii halkaas ay haysato aad buu yar muujis buu si qafiif ku noqonayaa laakiin haddii aad doonayso inuu yar muujismo tigta ka qaad okay hadii kalena dee kaba si ka saaro si qafiif loo saaro qafiif kaas wanaagsan hadda waxaad fahantay aan kugu soo celiyo watermark waxaad fahantay marka qoraalka laakiin custom la tago laba qaybood inuu ka kooban yahay qayb sawirkeeda iyo qayb qoraalkeeda sawirka tigta saaraysa select wada doonaysa goobta ka soo doonaysa marka sawir riixad insert soo dooranaysa halkan uu ku imanaya kadib baad leedahay apply uu qabsanayo waad arkay hadda doonayso inuu muujismo tan tigta ka qaas markaas aad ku siinaysa hadii kalena waad saaraysa textigu wuxuu ka kooban yahay tan textigu waa loo qoraalkaaga font no farti size iyo color iyo layout waa rugroga horizontal baad ka dhigtaa saddex wada rogrogi kartaa laakiin ka waa asal kasta marka intaas insha Allah casharkan qaybta horta ka baxayna page color ba ku yimid waa very important kana kala waxaad iska isticmaalaysaa maaha wax printer soo saar laakiin waa markaad isticmaalayso inuu computer-ka aad wax ku qoraysaa amba may boga word oo midab yar ku yeesho saad indhuhu ugu raaxaystaan un baa loogu talagalay wax kale ma dad inta isku dardari kartaa luugiyo kad inta isku hada sawir baad keensan kartaa هذا صور بودكاست وكا
وأنا أسكت ضد لكن هذا حب ثور حتى وان كسكر واحد تجي feel effect ما كان picture دورنا select كان دورنا كان سكير كان سنة سوي يجو وحي لكن واحد برينتر كصوب بحيمة إنه كصوب بحيمة حتى كان برينت بروف متك ما بأركي ميسي وكا ما أركس ما صوب بحيمة waxaa ku yimid border qaybtana muhiima qaybtan ayaynu aad u sharxi doonaa qaybta waxaa la isticmaalaa markaad rabto inaad shaxan yar kusoo wareejiso warqadaada amba midab gudaha hoose markaad intaas samayso ayaa bal hadda tijaabinaa warqad cusub inoo tag page layout border markaad joogto saddex qaybood ka kooban qaybtani waa borderska kan kale waa page border kana waa shading marka borders waa noocan layman baad u sameynaysaa wareeg aad rabto baraada warqada wareegaas oo kale iyadu ugu sameynaysaa hadda qoraal baan jiri laakiin hal mar buu ku fadhiisanaya amba kaasaad ka dhigi karaysaa qodba ka aad rabto laakiin ka marka warqada kusoo wareegmaya waa ka sare ee ah boxka laakiin shadowga isagu waa inaad inter kusii riixdaa u noqonaya okay waxaan sameynaa isaga laftigiisa midab leh color blue waa kan midabka doontaad ka dhigi kartaa halka ka eego waad arkaysaa okay option marka saa u samayso waxyaabaha faa'iidada mudan waxaa kamid ah intan maxay qabtaan kuwan waxay qabtaan marka lagu dhinacaas la wada ka saar line ka macne hal mar baad riixaysaa saa u riixaysaa ka adiga arka uu ka baxay bal click hadda waxaad rabtiin dhinacaas ka maqay ku noqo haddana wax la guri dhinacan kalena ka saar labada dhinac ee koona labada koone waad ka saari kartaa oo kuwan laba line ba page kaaga yaala ma jiro corner ma leh waad arkaysaa qaybta dhinacaas ka baxay labada qayb waxa uu ku celi iyagu baad ku celinaysaa oo kan dhag iyo dhag waxa uu labada hoose saar labada hoosena ka saarna waa ka hoosena waa ka imika waa ka laba xariiq oo dhacdheer baad aragtaa okay inta markaad fahanto qaabka aad u keen lahayd shahaadadka yar ee shaxanka aad ugu sameeyay waa ka artist midka doonta dooran kartaa kaas baad saa okay siinaysaa kala fiiso waxa faa'iido mudan inaad size windowskiisa balciisa yareyn karto badin kartana haddaba yareeyo waad arkaysaa uu dhuumnaanayo haddaan badinayana waxaan sameynayaa halkan baan kordhinayaa windows walla ama badinaya okay waxa faa'iido mudan page border shading kuna waxa weeyaan hard inaad u sameyso fill color hadda midab baan gudaha ayaan uga sameynayaa waad arkaysaa hadda baraad jaabino waad arkaysaa midab baan u sameynaa kaasina u sameynaa hadda uu automatic uu qaadanaa waad arkaysaa adiga wadaya marka mouse-ka ku wadayso marba qoraalkaaga marka saa wadmad saa kula soconay marka fiilkuna waa ku shumta style-kuna waa noocaad rabtaad ka dhigi kartaa shucaac noocaas faa'iido badan weyn hadda shucaaca markaad ku sameynayso wax ka duwan style-kuma tagaysa style-ka laftigiisa aad color u sii sameyn karaysaa waa achieve wad yaabaysa waxna dad si eegto si markaas shucaac laftigiisa midab u sameeyo arkaysaa okay intaas halkan waa maxay indentigana waa maxay indentigana waxa weeyaan qoraalka eegimaka marna sanad soo yareynaysa dhinaca bidix marna midigta badanaysa marka aad isticmaali karaysaa markaad shaybiskan aad wado ayaa lagu yiri soo dhinaca ka soo gaabi kala jar kala saaro saasad u kala koobi kartaa faa'iidooyin kalena waa in qabtaa laga yaabaa sidan oo kale inoo weeye hello everyone hadda hello everyone markaan soo hayno halkan aan eegno waa uun bino tagay ayaad halkan aad balaarinaysaa halkan aad soo yareyn kartaa dawad arkaysaa markaad waxaad sameynaysaa qoraalka aad rabto inuu soo dheeraado lefty 0.1 baa lagu talagalay laakiin hadda doonaysaa isku soo dhawaado isku soo dhaweyn kartaa waana dhinaca la durkin kartaa kana waad soo dhaweyn kartaa before waxaad arki kartaa inuu siisa hoos waday kaas hoos inuu dejinayo before afterna inuu muxuu sameeyaa inuu sii wadayo kana muxuu sameeyaa uu soo celinayo waad arkaysaa marka kana kala soo ceshanaysaa marka sii wado marka soo celinaysaa waad arkay wax badan ba kaminaan tagin bawar marka intaasina ku joojinaa page layout iyadana insha Allah tijaabin